wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa kulan muhiim ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Algeria Ahmed Attaf kaas oo ka dhacay magaalada Algiers ee caasimadda dalkaasi. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Algeria gaar ahaan dhinacyada difaaca, amniga, waxbarashada, farsamada gacanta iyo xoolaha. Labada wasiir ayaa isla gartay in la dhiso guddi heer wasiir ah oo labada dal ka dhaxeeyo si loo adkeeyo iskaashiga labada dowladood loona horumariyo xiriirka labada dhinac. Inta uu socday kulanka waxaa sidoo kale laga hadlay arrimaha gobolka oo ay ka mid yihiin xaaladaha ka taagan Suudaan, marinka Gaza, Geeska Afrika iyo gobolka Saaxil. Labada dhinac ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhab ah si loo helo xasilooni waarta oo ka hana qaata guud ahaan gobolka. Wasiir Cabdisalaan ayaa uga mahadceliyay dowladda Algeria taageerada ee mar waliba la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo midnimadooda, isagoo xusay in xiriirka labada dal uu yahay mid taariikhi ah oo sal adag ah. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Algeria Ahmed Attaf ayaa isna uga mahadceliyay dhigiisa Soomaaliya booqashada iyo dadaalada uu ku bixinayo xoojinta xiriirka labada dal, wuxuuna sidoo kale ballan qaaday in dowladda Algeria ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya.